maantay waa maalin kale oo shaqo waxaan joognaa dekadii Garaacad oo ay ka socdaan shaqooyin muhiim ah oo kala duwan shaqooyinkaas waxa ugu culus muhiimadda koowaad leh dhammaystirka jambiga C ama jambiga saddexaad oo aan hadda dushiisa taaganahay jambigaas sidaynu la wada soconayba bila ka hor ayaanu meeshaan badda uga sagootinay balaagyadii ugu horeeyay oo lagu soo buuxinayay dheega markabku ku tiirsado muddo ka bacdigiis waxa ilaah noo suura galsiiyay inaanu maantay u diyaarsanahay inaan shubno jambigaas oo markabkan hadda iga dambeeya uu sido shamitadii lagu shubi lahaa jambigaas ilaah baa mahad leh jambigaas haddii uu shubmo oo dhammaystirmo wax weyn ayuu ku soo kordhinayaa dekedan wuxuu kale oo istiraatiijiyad ganacsi ku soo kordhinayaa dhammaan gaadiidka badda ee badda mara caalamka Soomaaliya iyo ganacsiga Puntland sida la socotaan adduunyadu maantay waxaa jira waxyaabo badan oo isbedelaya oo xagga marinada caalamka ah waa muhiim meeshaan in laga sameeyo deked dhibsi ah ama moolkeedu dheer yahay oo leh jambiyo sida kan oo kale oo saaka aan diyaar garowgiisa dul joogno oo moolkiisuna dheer yahay jambigiisuna weyn yahay markabkan hadda weyn oo dabadayda ku xiran waxa ku xirmi kara jambigan saddex markab oo asaga leeg oo muddo meel ku xirmo ayaa ku xirmi kara waana jambi aad moolkiisu u dheer yahay sidaas ayuu wuxuu u yahay wax ku soo kordhinaya dekeda Garaacad special Soomaaliya badweynta Hindiya deked ku taal bartamaha Soomaaliya in jambigan ka hirgalo aad iyo aad bay muhiimad caalamka ganacsiga caalamka iyo ganacsiga Soomaaliya iyo Puntland ugu leedahay dhammaystirka jambigaas waxa qayb libax ka qaatay shamitadan oo aan halkaan uga mahad celinaynaa madaxda dawladda Puntland madaxweyne Siciid iyo wasiirka maaliyadda Maxamed Faarax oo shamitada hadda markaan jambigan lagu shubahayo bixiyay lacagteeda aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa haddii idamka Ilaahay ka dhigo jambigaas sida ugu dhaqsaha badan inuu u shubmo waxaan rabnaa oo kale aan u mahad celinaynaa kambaniga shaqada gacanta ku hayo TTN oo ilaa intii shaqadaasi bilaabatay marnaba aysan joogsan daruufo adag kasta oo ay soo mareen marnaba aysan joogsan dhismaha dekedan haatan suura galsiiyay jambigii asaga oo wali aan la shubin qalab iyo farsamo ay diyaariyeen awgeed in markabkan hadda dabadeeda ku xiran asaga uu ku xiran yahay oo la isticmaalayo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa markii la dhammaystiro inuu noqdo muhiimadda aan sheegay iyo mid ka sii fiican waxa kale oo aad ugu mahad celinayaa shirkadda Barwaaqo oo ayaguna shirkadaha isticmaala dekedan shirkadda ugu horeysa oo markabka ugu horeeyo lagu furay C iyo B lahaa haatanna ku guuleystay in markabkooda ugu soo hormaro jambigan C oo maanta shamidka ay keenaan oo ayadana lagu dhammaystirayo aad bay u mahadsan yihiin shirkadaha kale oo la mida oo ganacsiga caalamka ayagana waxaan leenahay sida oo kale ugu soo dhiirada fursado badan baa ka furan fursadii aan hadda ka hor u dhawaaqnay oo ahaa in dekedani discount loo sameeynayo bakhaaradeeda baarkimadeeda iyo jambigeedaba sida ayuu ilaa hadda u furan yahay waxaan leenahay ka faa'iideysateen ganacsada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka waxaan kale oo jeclahay halkaan inaan ayagana kalana dardaarmo kalana hadlo ganacsatadii Soomaaliyeed ee hantidan isku darsaday oo dhismahan dekeda qaybta ka ahaa in wuxuu yiri hawlka madaalooyin oo cidii wali waa hayaan mar haddii ilaah noo suura galsiiyay in aan labadii jambiyo hore dhisno oo furanno
midkaanina maantay uu asagu heerkaa noo marahayo oo kanina hadda noo dhammaystirmahayo kii kaleeto oo dhiina uu gebagaba yahay waxaan leenahay hardi marax iyo harata u haray waxaan rabnaa inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno sidaynu una dhammaystiri lahayn una dhaqaajin lahayn ayadana inaan ugu diyaar garowno idinkana intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo ilaahay idinkiisa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leenahay ilaahay baa mahad leh noo suura galsiiyey wax kasta oo aanu hami kasta oo aanu haabanaynay ilaahayna gaarsiiyey inta dhimana ilaahay una gaarsiiyaan jecel lahay oo qayb walbaba leh aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.